saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub waxaan idinku soo duubi doonaa bilicda magaalada iyo goobaha aadka u quruxda badan iyo webiyada ku yaal halkan Hamburg ayaan idinku soo gudbin doonaa. Haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir YouTube channel-keena, sidoo kale waxaad nagu soo biirtaa barteena Facebook iyo TikTok aan ku leenahay iyo Instagram-ka. Waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo tayo leh oo xiiso badan ayaan halkan mar walba idinkula wadaagi doonaa oo aad ka heli doontaan, kuwaas oo ah kuwa taariikhi ah, kuwa dalxiis ah iyo kuwa kale oo nolosha deegaanka ah iyo nolosha kale ee meesha. laga raacay tareenka halkaasaan tagi doonaa. Waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo aad u xiiso badan. Tareenka dad baa haday waxa arkay anoo tareen ka soo degay laba gabdhood buu dardaray markaa waxay ahaayeen meel si qaldan ay u fuuleen oo maleynaa marka uma jeedin marka damqayladooda maqlay halkaas marka waxaan tagi doonaa halkaas tareenka. Waxaan idin soo gudbin doonaa habka uu socdo iyo sidoo kale waxaan aadi doonaa goobaha aan idinku talagalnay maanta inaan muuqaalka aan idin soo jeediyo. soo dhawaada halkan waa meesha laga jirnay tigidhka. Waxaan rabaa marka inaan goosto tigidhka waxaan ku sii aaday magaalada marka waa iska lacag yar kaaraan wata kaarkaas aan rabaa inaan ku jirto kadibna waxaan rabaa inaan magaalada aado waa jaran doonaa saaxiibayaal waa jarnay tigidhka waa kana ku raacno baska tareenka ku raacno waa jarnay marka waxaan rabnaa inaan ku raacno tigidhka dibna halkan laga jartaa. Sababta idinka qariyo waxa way kaarka waa idinka qariyay waxaan diiday inaad bangiga akhrisaan marka waxaan tagaynaa meesha waa jartay kadib waxaan raaci doonaa dadka hadda waxay ka soo degeen tareen ay ka soo degeen marka waa bixi doonaa kadib tigidhka raaci doonaa hoos u degi doonaa marka hoos u degno tigidhka aan ku raacay ayaan ku sii gali doonaa.
jarmal ah waxay ugu dheer youtuber miyaad tahay markaasaan ku yidhahaa waxaad noo qortaa youtube-kaaga channelkaaga saan ula socono muuqaaladaada marka isla soo hadalay kadibna halkan ay ku degeen waxay dhaheen waxay idin keeni doonaa goobo aad u qurux badan oo aad ka heli doontaan marka next stopkii hadda u dambeeyey ay nagaga degeen waxaan tegi doonaa waxaan u socnaa meeshii aan u socnay halkaas ayaan isdiri doonaa muuqaalana aan ka samayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo waa meel aad u qurux badan oo aad ka heli doontaan meeshan waxaa ku yaala webiyo waxaa la yiraahdaa Hammarburg marka halkan webiyadan ayaan idin soo bandhigi doonaa muuqaalaha ka qaban doonaa kadibna waa meesha waa qurux badan tahay indhahan ku doogsan doonaa nala socda waxaan idinku aadinayaa muuqaalkan waaw meeshan aad ay u qurux badan tahay shimbirahan barkaad halkan timaado way kuu imaanayaan si aad u siiso waxay cunaan marka meelahan oo kale ayaa lagu gadaa inkastoo nasiib wanaag nasiib xumo waqtigii lagu iibinaya aan kasoo daahnay marka way noo yimaadeen waa u weyne marka meeshan artist badan ayaa ka muuqda gurigaas wuxuu ku dhex yaalaa biyaha dhexdooda webigan meeshan waa meesha loogu talagalay dadka inay fadhiistaan oo ay waqti ku qaataan buugaagta lagu akhristo korna waa train stationkii oo haddii aad daasho oo aad rabto inaad gurigaaga aado halkan ayaan istaagay waqti ayaan ku qaatay runtii waa meel soo jiidasho leh oo aad u qurux badan oo aan laftirkayga aan ka helay idinkuna waxaan filayaa inaad ka heli doontaan oo aad maaragtay halkan ayaan ku socnay kor ayaan fuulaynaa si aad u heshaan muuqaalo tayo leh oo aad ka heshaan runtii meelahan waxay ka mid tahay meelaha aan ugu jeclahay inaan waqti ku qaato oon ku dalxiiso maadaama aniga aan ka helayna asxaabteyda inaan u soo gudbiyo halkan igula saaxiibka marka meeshan waxaa ku dhex yaala goobo aad u qurux badan oo waaw runtii waa meeshaas saaxiib yaal waad arkaysaan maasha allah waa meel aad u qurux badan oo aad viewgeeda u qurux badan waaye marka halkan waa inaad timaadaan oo waqti aad ku qaataan dadka reer Jarmalka inta badan meelaha oo saas u qurux badan ma tagaan badanka dadku waa inta badan way wada shaqeeyaan marka waxa loo baahan yahay inaad meelahan mararka qaar markaad xoogaa aad dareento stresska halkan anigu ma malaynayo qof meeshan quruxda badan arkaayo in uu xoogaa waqti ku qaadan waayo marka aad bay u qurux badan tahay marka waxay idin tusayaa viewgan ila daawada xilliyada habeenkii meeshan aad ay u ifaysaa waxaa ku yaalo maqaaxido lagu caweeyo waqtiga lagu qaado saaxiib yaal waxaa daawateen muuqaal aad u qurux badan waxaan rabaa inaan ku nasino muuqaal dhextaal ah oo ah heesa iyo qoobka ciyaar ay soo bandhigeen video ugu kala noor carabta ee ku sugan halkan ayaan booqanay mar aan dalxiiskeena ku jirnay marka waxaan rabnaa inaad muuqaalkaas nala daawato
waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkaasi aan idiin soo gudbinay. waxaan u sii socon doonaa muuqaalada kale xiga aan ku soo bandhigayno bilicda magaalada iyo sidoo kale qaybaheena maanta dalxiiskeena intuu ka koobnaa iyo qaybaha uu ka kooban yahay iyo webiyada iyo quruxda halkan maanta aan idiin soo waxaan filayaa inaad daawateen muuqaaladaasna aad ka hesheen viewgaas aad u qurux badan aad ka hesheen. haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir oo followna soo dheh, sidoo kale barteena youtube-ka soo subscribe garey, barteena instagram-ka iyo sidoo kale tiktok-ka waad nagala socon kartaan si ay noogu noqoto dhiirigelin. muuqaalkan noo share gareeya si aan mustaqbalka idinku soo gudbino muuqaale xiiso badan oo aad ka heli doontaan runtii. haddii Europe laga deerin jiray ama waxyaabo badan lagu soo dhinaca ku fiican tahay, dhinaca ay ku wanaagsan tahay, dhinaca quruxda, dhinaca wanaagsan ee looga faa'iideysan karo ayaan halkan idinku soo bandhigi doonaa. muuqaalada soo codsataanna waan idin soo duubi doonaa, meel kasta aad soo codsataanna waan tegi doonaa oo idin soo duubi doonaa. halkan aan joogo hadda waa Hamburg, gobolka Hamburg, gaar ahaan magaalada ku dhex taala Hamburg City Sud. waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiina idinkaa waxa idinku ah.